maalgashi saxa sidee loo sameeyaa 2026 maxay say tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ama ugu mudan ee la maalgashado oo uu qofku faa'iido fiican ka heli karo haddii uu si sax ah u maalgashado maalgashi saxa ma aha nasiib waa go'aan ku dhisan aqoon qorshe iyo dulqaad qof kasta oo raba mustaqbal dhaqaale oo wanaagsan waa inuu fahmaa sida saxda ah ee wax loo maalgashado ugu horreyn walaal ku soo dhawow YouTube-kan waxaan kaga hadalnaa online business-ka iyo self development horumarinta shakhsiyadda haddii aad jeceshahay mawduucyadaas fadlan nagu soo biir oo YouTube-ka subscribe noo saar sidoo kale like noo saar si muuqaalku dad badan ay uga faa'iideystaan waxaan soo qaadan doonaa dhowr tallaabo oo ay muhiim tahay in aad samayso iyo waxyaabaha ugu mudan ee ay tahay inaad maalgashato ama inta badan ugu muhiimsan waxyaabaha la maalgashado kow waxyaabaha la rabo qofku inuu sameeyo intuusan wax maalgasho waxa kamid ah sameey yool cad marka ugu horeysa intaadan maalgashi ama aad lacagtaada ama dhaqaalahaaga aadan wax ku maalgashan waa inaad samaysato horta yool cad iyo hadaf waa inaad digsataa ka hor inta aadan bilaabin isweydii su'aalahan maxaa rabtaa inaad gaarto waa maxay hadafka waxa aad doonaysa inaad maalgashato maxay rabtaa maxay ujeedadaadu maxay tahay ma dakhli degdeg ah doonaysa mise mid waqti dheer qaata haddii aadan yool samaysan ama yool la'aanin waxay tilmaamaysaa maalgashi aan jihaysnayn taasina waxay keenaysaa marka inaad ku fashilanto marka inta aadan wax maalgashan marka ugu horeyso qorshe cad samee qorshe cad oo aad maalgashigaaga ku hagayso iyo waxa aad maalgashanayso iyo waxa aad maalgashanayso waxa uu ka shaqeynayo horta qorshe nidaamsan samayso marka aad qorshe nidaamsan samaysato qodobka labaad waxa samaysaa baro ka hor inta aadan lacag gelin waxa aad rabto inaad maal gashato horta baro oo waxa weeye si fiican u fahan tusaale haddaad doonayso inaad dhul maal gashato dhulku sida uu shaqeeyo sida macnaha sida uu isku bedelo qiimayaashiisu sida macnaha qiimihiisu u siyaado